Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada muuqaal cusub. Ma ku dhibay qufac aad u fara badan? Hawalwelin hana murugoonin, waxaan kuu hayaa 5 qodob qufaca aad iskaga daaweyn karto ama aad iskaga difaaci karto. Horta, qufaca maxaa sababa? Waa inaad ogaatid waxa sababa qufaca. Waxaa sababa qufaca 3 shay. Lambarka koowaad, qaac aad u fara badan. Lambarka labaad, boor fara badan. Lambarka saddexaad, xaaqada faraha badan. Haddaba ku dadaal 5tan arrin aan ku hayo maanta si aad iskaga yarayso qufaca. Qodobka koowaad, cab biyo badan ama isticmaal biyo caadi ah maalintii 1 litir ilaa 3 litir, waayo waxay kuu soo saartaa xaaqada faraha badan, kana dhigaya dhuunta mid caadi ah oo nadiif ah. Haddii aad cabto biyo fara badan, waxaa yaraanayo xaaqada aad tufaysid. Lambarka labaad, waa inaad isticmaashaa toonta la karkarin. Haddii aad isticmaasho, waxay daawo u tahay ama ay ka hortagaysaa bakteeriyada iyo fayraska soo weerara sambabada, kaasoo ku dhalan karo dhuunta iyo sambabada, taasoo mar walba sababayso in aad qufacdo. Zaid u isticmaal toonta waa muhiim. Qodobka saddexaad, isticmaal shaaha ay ku jirto sanjabiisha. Sanjabiil ku karkari biyo kulul sanjabiisha, kana dhig mid kulul. Kadib isticmaal si caadi ah ugu darso xitaa shaaha. Sidoo kale sanjabiisha waxay dishaa bakteeriyada dhuunta ku jirto. Dabadeed waxay si nadiif ah ugu neefsan kartaa neeftaada caadiga ahayd. Waana hubaal sanjabiisha dhibaatada ayay xal u tahay. Qodobka afaraad, waa inaad isticmaashaa mar walba malabka. Isticmaal malabka maalin walba 1 qaando ilaa 2 qaando ilaa uu ku daynayo qufaca badan, waayo malabka waxay waqtigan daawo u tahay qabowga, caabuqyada, alerjigada oo ku dhaca dhuunta, kuwaasoo sababi lahaayeen qufac aad u fara badan. Qodobka 5aad, saliid saytuunka iyo saliidda caadiga ah. Xitaa saliidda qumbaha waad isticmaali kartaa. Saliidahan dabiiciga ah waxay daawo u tahay bakteeriyada soo gasha dhuunta iyo feeraha, waxayna joojiyaan xaaqada badan, taasoo sababi lahayd qufac fara badan. Walaalayaal, halkan ayaan kusoo koobayaa muuqaalkeena. Wabillaahi towfiiq. Is aragti dambe oo xiiso leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.